السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أصحابي soo dhawaada muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadlaynaa mid ka mid ah halyeyadii taariikhda ka galay baalka dahabka ah ee lagu magacaabo Ibnu Baytara. waxa uu ahaa shakhsi si aad ah uga soo muuqday adduunkan aynu ku noolnahay, waxaana uu ku soo kordhiyey daaweynta dhirta kala duwan iyo sida loogu daaweeyo xanuunada maqaarka. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka, like saar, subscribe na saar. haddaad hore noola joogtayna waad mahadsan tahay. magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. ku soo dhawow muuqaalkan. magaciisu waa Abu Maxamed Diyaa-Uddiin Abu Cabdillaahi bin Axmed. waxa uu ku dhashay magaalada Andanos ee dalka Spain sanadu markay ahayd 1197 ee miilaadiga, kuna beegnayd 593 ee hijriga. waqtigiisii yaraantiisii waxa uu ku soo qaatay magaalada Andanos ee dalka Spain, halkaas oo uu ku dhameeyay waxbarashadiisii. Ibnu Baytara waxa uu ahaa shakhsi aad u jecel yaraantiisii dhirta barashadeeda iyo sida loogu daaweeyo xanuunada maqaarka ku dhaca. waxa uu ahaa shakhsi aad u jecel in uu tijaabiyo dhirta. Ibnu Baytara waxa uu u safray magaalooyin badan, ujeedkiisuna waxa uu ahaa inuu korodhsado cilmigiisa. magaalooyinka uu aadayna waxaa ka mid ahaa Roma, Tunisia, Algeria, Giriga iyo Masar. Ibnu Baytara waxa uu wax badan ka faa'iiday aqoon-yahankii weynaa ee dhirta ee lagu magacaabi jiray Abi Cabbaas Axmed bin al-Mafruuji. Ibnu Baytara waxa uu qoray daaweynta dhirta iyo cuntada. kitaabkii uu qorayna waxa uu ugu caansan kitaabka lagu magacaabo Al-Jaamic al-Mufradaat al-Adibiyaat. waxa uu kitaabkaas ku qoray luqadii Carabiga oo waqtigaas ahayd luqadii xadaaradda adduunka. kitaabkaas waxa uu u sameeyay jabtaro, waxaana uu si cilmiyeysan uga hadlay daawo walba iyo faa'iidada ay u leedahay iyo sida ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo. kitaabka qoristiisana waxa uu dhameeyay sanadu markay ahayd 644 ee hijriga. allaha u naxariistee waxa uu geeriyooday sanadu markay ahayd 646 ee hijriga, kuna aadanayd 1248 ee miilaadiga. waxaana uu ku geeriyooday magaalada Dimashq ee dalka Syria. insha Allah waa inoo iyo muuqaalkan muuqaalka xiga.